بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا جوبا انستيتوت اوف بروفيشنالز يوتيوب شانل ومركلي 10 كمية 10 هذا إن فوت توصل سيشن إنجليش وادس براكتس بوك كاسو كآخر إن بوك أقرأ باوليشن فوت توصل سيشن إنجليش وادس ومعنى لتاي أفرتكون أري أقوم بمسل إنجليزك حتى بعد جوبا انستيتوت واحد يكون بشهر سائل بلغضي إلى أرض قواتو كورسوين قارة أستقارة لو تبرهيو كواس أرضو محصلها قيمة معقولة ayna la sheekaysanayaan dad luuqada u dhashay haddaba hadda arto inaan barnaamijka ka faa'iidaysto fadlan soo xiriir namarkayga aan u gudubna cashirka maanta cashirkeenu waa cashirka tobnaad ee ka mid ah taxanihii buugga photos session English words wuxuuna ku yaalaa page-ka 33 ee buugga haddaa arto buugga asagoo maqal ah asagoo dhegeysiya asagoo qoraal ama fadlan ku biir telegram groupka halkaas kala halkaas ayaan soo dhigay ereyga koowaad ee maanta qaadanayna waa normal waa ereyga sagaashan iyo koowaad taasoo ay ka dhigan inaan 9 erey hore usoo baranay kuwaasoo kusoo kala toobto 9 video fadlan markaas videoyaasha hore usoo daawo haddii aad nagu cusub tahay page-ka subscribe saar ereyga maanta aan barayno waa normal ama normal waa caadi ah wax caadi ah oon kugu cusbayn ama la yaab lahayn waxaa lahaa normal waa adjective marka waa adjective oo sifa if something is normal shayga hadduu normal yahay it is not strange ma aha wax qariiba strange waxaa lahaa wax aan hore loo arkin ama qariiba nor surprising ama ma aha wax la yaab leh to you adiga waa kala tusaalehe it's normal for me to bathe it's normal for me caadi bay tahay to bathe inaan qabaysto every night habeen kasta it's normal for me caadi bay tahay to bathe inaan qabaysto every night habeen kasta ereyga kale aan barayna waxa weeyaan masaashan labaad rare waxaa lahaa naadir ah ama dhif ah wax mar la arko naadir waa af carabi laakiin soomaaliga la isticmaala shaygaas waa naadir ama waa dhif iyo marna way dhahaan marka waa adjective waa sifo if something is rare shaygu hadduu yahay naadir you do not see it ma arkaysi very often badana oo waxa badana la arkay tusaale wuxuu yiri it's rare for him waa yar tahay ama waa naadir to miss his flight inuu duulimaadkiisa uu waayo miss his flight hala markay diyaaradda ka tagto I miss my flight oo kala dhigatay waxaan diyaaradda ka tagtay marka wuxuu it's rare aad bay u yar tahay ama waa naadir for him to miss his flight inay diyaaradii ama duulimaadka uu ka baaqdo oo diyaaradda ka tagto macnaheedu waxa qof aad iyo aad u dadaalo weey ereyga 93aad aan barayno waxa weeyaan relax waa verb noun way noqotaa waa isdeji ama naso hadaa ku dhaho relax isdeji ama naso relax calm down bay ku macnata to relax is to rest waa nasasho waa ka ereyga kale ku macnaha to relax is to rest waa nasasho salaam calaykum the frog relaxed wuxuu ku nasanayay in the warm sun qoraxda qandacay ayuu isku dhigay the frog relaxed wuxuu ku nasanayay in the warm sun qoraxda qandacay erey kale maanta baranayna waxa weeyaan request waa codsasho waa verb waa codsasho noun saasa ku tahay noun keedana waa request verb keedana waa request waa codsasho ama codsi request waa codsasho ama codsi to request something inaad shay codsato is to ask for it waa inaad wax weydiisaa marka request waxaa macnaha ask for iyo relax waa isku macna to relax something is to ask for it inaad weydiisato tusaale maatala the little girl gabadha yareed requested a special gift waxay dalbatay a special gift hadiyad gaara gift waa hadiyad from Santa Claus bay ka dalbatay Santa Claus marka waa baadari kamid ah baadariyaashii hore ee gaaladan kristaanka marka iidaha ayaa qof wuxuu iska dhigaa Santa Claus buu iska dhigaayo waxba uu qaybiyaa hadiyado caruuraha siiya marka waxa request waa codsi oo codsasho oo verb way noqotaa codsi oo noun way noqotaa marka wuxuu yiri markay verb ka tahay request af Soomaaliga fiir codsasho way markay tahay noun waa codsi to request something is to ask for it waa inaad wax weydiisataa
The little girl requested gabadh yareed waxay dalbatay ama weydiisatay a special gift hadiyad gaar ah from Santa Claus. Santa Claus wuxuu ka hayay baadari hore u ahaa laakiin waxaa jira xilliyo ciidaha Christmaska oo kaliyo iyo wax iska dhigan ninkaas iska dhigan oo hadiyada bixiyaan. ereyga 95aad ee ereyada imtixaanaha waxa kamid ah reside. Reside waa degid markaad meel degto. haddaan ku dhaho where do you reside xageed degantahay waa meesha sida rasmiga ugu noqosho. To reside means waxay ka dhigan tahay to live somewhere inaad meel ku noolatahay permanently si rasmiya or for a long time ama waqti dheer. To reside means to live somewhere waa inaad meel ku nooltahay permanently si rasmiya or for a long time ama waqti dheer. tusaale ahaan my brother and his family aabahay iyo qoyskiisa reside waxay ku nool yihiin ama degan yihiin in a lovely house guri fiican on the beach ee ku yaala xeebta. My brother and his family aabahay iyo qoyskiisa reside in a lovely house waxay ku nool yihiin guri fiican on the beach ee xeebta ku yaala. marka saas uu noqonaya ereyga kale waxaa weeye result waa natiijo ama xaasil. A result is something waa shayga that happens dhacayo because of something else shay kale sababtii. result waa natiijo uu ku sheego marka natiijo wey ama xaasil. Result is something waa shay that happens dhacayo because of something else shay kale ayaa sababay. tusaale waa kale as a result of all the rain natiijadii ka dhalatay roobkii oo dhan the man had to climb ninka wuxuu ku qasbanaaday inuu fulo on the roof saqafka sare malaha biya u soo galay. As a result of all the rain ayadoo ugu wacan tahay roobkii natiijadii ka dhalatay roobkii the man had to climb ninka wuxuu ku qasbanaa inuu fulo on the roof saqafka inuu fulo ayuu ku qasbanaa. ereygaana saasuu noqonaya. ereyga kale ee 97 waxaa weeyaan roll macnaheedu waxaa weeyaan duuduubid garaangarin wilaan macnaha saas waaye waa verb marka. roll waa waxa markaad duuduubto ama aad garaangariso. To roll is to move by turning over and over waa garaangarin ama duuduubid oo kale. tusaale waxaa you must roll waa inaad wilaanwilisaa ama aad garaangarisaa the ball kubadda into the beans. beanska waxaa weeyaan bahalo lagu dhigay oo biinan camal meel lagu dhigay when you bowl markaad ciyaarayso ciyaarta loo yaqaan bowl. ciyaarta bowl marka waxay tahay biinan baa meel la suraya ka bacdi banooni baa la soo wilaanwilin banoonigaasaa ku dhici marka inta xabay ridaa la arkaya. marka eraguna waa verb. roll waa garaangarin ama duuduubid. To roll is to move by waa inaad shayga dhaqaajisa turning over and over inaad sa u wilaanwiliso wey. You must roll the ball waa inaad banooni u galgaliso into beans when you bowl marka ciyaarta bowlka dheerdheerayso. ereyga kale since waa preposition waa meeleeya saw meeleeya macnaheedu waxa kala la isticmaalaa macnihiisu noqon laba macno leeyahay ilaa iyona way noqotaa maadaamana uu noqdaa. since haddaad isticmaasho jumladii ku xidhanta mar wuxuu noqdaa ilaa iyo marna wuxuu noqdaa maadaama. tusaale ahaan since is used since waxaa loo isticmaala to talk about a past event in laga hadlo dhacdo hore u dhacday still happening oo weli dhacayso. tusaale ahaan wuxuu yidhi since 1992 ilaa iyo 92 he has been driving wuxuu watay daadka gaariga. since 1992 badanaa waqti go-an baa xidho yaa raaco. since 1992 ilaa iyo 92 he has been driving that car gaarigaas ayuu watay wey marka. ereyga 99 waxaa weeyaan visible la arki karo waa adjective. waxaa weeye visible la arki karo marka la arki karin invisible bay noqonaysaa la arki karo. if something is visible shayga haddii la arki karo it can be seen waa la arki karaa. tusaale waxaa tidhi the moon and the stars dayaxa iyo xidigaha. the moon dayaxii and the stars iyo xidigihii waa visible waa la arki karay in the night sky. cirka night sky waxaa la habeenkii cirka night sky waxaa la markuu cirku habeen yahay baa la arki karaa xidigaha maalinta lama arko. wuxuu the moon dayaxa and the stars waa visible waa la arki karay in the night sky baa la arki karay. ereyga boqolaad waxaa wild duurjoog ah ayaa la wild duurjoog ah
tusaalahaan adjective way marka. If something is wild, haddii ka dhiganta isaga tusay waa wild yahay, it's found in nature, waxaa laga helaa duurka ama duurjoogta laga helaa. Tusaalahaan wuxuu yidhi you should be careful, waa inaad taxataa around a fox, markaad la joogto foxku waa dawaco, because it's a wild animal, waa xayawaan duurjooga. marka wild waxaa la dhahaa wax duurjooga. sidoo kale marka qof wax markuu kacsan yahay oo kale ama sidii duurjoogta u dhaqmana wild baa la dhahaa. aad iyo aad baad umahadsantihiin. waa 10keena eray ee maanta halkaas ku dhayahay 100 eray baana kaamila insha Allah mar dhunta baan qaban doonaa. fadlan channelka ku cusub tahay subscribe saar, gambalaalkana furo si aad cashareenana si taxara u hesho. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.